sharaf weyn ay tahay nin saaxiibkay nabadoona oday ah aan wanaag badan ku tuhmaayo in aan xilka caaw ku wareejiyo maxamed cabdiqaadir mire musharaxii la tartamay musharaxa guuleystay asagana wuu guuleystay marka waxaan rabaa waxaan jeclaan lahaa gudoomiyaha guuleystay faarax guuleed bidhaan iyo musharaxa geesnimada muujiyey maxaa cabdiqaadir mire labadaba inay soo istaagaan garbahayga ay imaadaan waan jeclaan lahaa ninna waa ninkii guuleystay oo dhinacayga bidix taagan ninna asagana waa guuleystay oo waa ninkii tanaasulka sameeyey uu noo howl fududeeyey waxa uu sameeyey waa wax geesinimo ah waa wax aan qof walba laga helin hadduuna noo howl fududeyn lahayn ama una tanaasuli lahayn salaad subax halkan aan loogu aadaami lahaa waxaan uga mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad shaqada quruxda badan uu noo qabtay maxamed khayr allah ku siiyo waana mahadsan tahay taariikhdan oo ku xusi doonto insha allahu tacaala tadambana waxaan kaa codsan lahaa inaad haddana musharax soo noqoto ha ka niyad jabin qofka sidiisaba hamiga uu leeyahay maalin buu gaaraa haddii maanta aad tanaasushay doorashada kale waxaa laga yaabaa in lagu tanaasulo siyaasadda sideedu waa siyaasaddu waa qori isku dhiib faarax waxaan ka codsanayaa bahasha inuunu luuq la gelin saan annaga bannaanka aan u keenno asagana bannaanka u keeno intaa kadib waxaan u hambalyaynayaa musharaxa la doortay ee magaciisu uu yahay faarax guuleed bidhaan anuu jaaliyaddii mas-uulka ah jaaliyaddiina caawa matalayo si hufan oo qurux badan oo nidaamsan waxaan rabaa inaan ugu wareejiyo musharaxa la doortay caawa ee faarax guuleed bidhaan waan caafimaad qabaa waxba igama khaldana caadi baan ahay raalli baan ka ahay inaan wax walba ku wareejiyo musharaxa adinka aad doorateen mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad guddoomiyaheenna cusub ku soo dhowow xilka Somali Community Board ee waddanka Koonfur Afrika waxaan kaa ballan qaadayaa sidii hadaaya aan sheegay inaan mar walba garabkaada taagnaan doono shuruudna aanan kugu xiri doonin lacagna aanan kaa rabin hebel baan wataa xil isiina aanan ku dhehaynin aniguna xil aanan kaa rabin siyaasiyiintii waayada waxay iska noqdeen warkan aan wataa iyo magacaawniyo gudoomiye ku xigeen iga dhig xogaye iga dhig wax aan wata ma leh walaalkay bilaa shuruud iyo anoon qof wadanin baan kula shaqayn doonaa hortiinana ka ballan qaaday intaa kadib xilku waa xil culus xil fudud maaha ummad baad u adeegaysaa oo caawa hortooda aad ka dhaaranaysaa si lilaahiya oo daacad ah oo sinaan ah inaad ugu adeegayso waxaan kaa codsanayaa inaad mar walba ka shaqayso midnimada guud ee jaaliyadda aad u cadaalad fasho dadku ay kuu sinaadaan xilkana oonan kula noqonin mid fudud ee aad ogaato xil culus oo lagugula xisaabtami doono maalinta yowmul qiyaamaha inuu yahay
jaaliyadda Soomaaliyeed wixii khalad oo aad ka sameeyso kuma cafin doonaan maalin baa lagu soo istaajin doonaa nin dadka u adeego u shaqeeyo daacad u ah dadku ay u siman yihiin mid xun iyo mid fiican isku wado mucaarad iyo muxaafad isku wado inaad noqoto adaa laga rabaa waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa caawa laga bilaabo Cabdiraxmaan Gaarana gudoomiye ma ah waa nabadoon gudoomiyanimadii ninkii ag taagan baa la wareegay wixii Talyaani looga baahnaa iyo wixii Gaaran looga baahnaa hadda kadib waxa inaga la wareegood u soo wacan doontaan Faarax waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa jaaliyaddu ha guuleysato gudoomiyaha cusub ha lala shaqeeyo haddii lala shaqeeyo oo jaaliyadda iyo madaxdeedii ay mid noqdaan waxyaabo badan oo hadda culus waa fududaanayaan gudoomiye dadka isku wad dadka isku keen jaaliyadda miday dadka hal ka dhig sagaalka gobol oo wadanka mid walba tag dadka quluubtooda soo hano bilaha soo socdo insha Allah ta'ala aan aragno isbedel weyn waxaan kaloo kugula dardaarmayaa gabdhaha dawladda qayb ka noqdaan annagu dawladdeennii waxa lagu xamin jiray rag baa u badnaa systemkeennii iyo nidaamkeennii meel ay gabdho ka maqan yihiin inta badan nacfi badan ma yeeshaan waxaan kugula dardaarmayaa xilalka kulay dawladda dhisi doontaa xilalka gabdhaha u badi meel aan gabdho joogin waa meel aan nabad jirin ee dalka koonfur waxa caawa hoolka soo buuxay aad arkayso waa gabdho marka gabdhaha mar walba insha Allah ta'ala ha gacan bidhaynin garabkaaga kuwa mar walba taagan ha noqdaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha cusub Faarax Guuleed Bidaan oo mikrofoonka aan ku wareejiyo gudoomiye soo dhawow adii kale waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.